صاحبي الكسور دواده wararkii ugu dambeeyay ee suuq jiilaalka oo aan waxoogaa idin dul mari doono aniga oo idin ka raali gelinaya in aanu bariyahan waxoogaa aad uga mashquulnay dhinaca ciyaaraha aan ku bilaabo qanaaska kooxda Red Bull Leipzig Benjamin Sesko ayaa ka baaran degaya inuu xagaaga soo aadan ku biiro kooxda Arsenal oo sidoo kale raadinaysay fasal ciyaareedkii tagay sida uu xaqiijiyay wariye Fabrizio Romano Sesko fasalka hore Arsenal kaga dhaartay inuu ku soo biiro si uu sii joogo horyaalka Bundesliga ayaa imika waxa uu dhaliyay 11 gool iyo 3 kale oo uu dhigay 23 kulan oo uu saftay fasal ciyaareedkan dhanka kale kooxda Barcelona ayaa ku dib mudanaysa diiwaangelinta laacibka Dani Olmo gelinka labaad ee fasal ciyaareedkan kadib markii ay maxkamaddu iska diiday codsiga Barcelona ee ahaa in laacibka loo diiwaan geliyo waxaana haatan kooxda reer Catalonia haysataa ilaa 31 bishan December si ay u diiwaan geliso laacibka Olmo hadii kale Jokerkan ayaa bilowga sanadkan 2025 waxa uu ku tagi karaa qaab bilaash ah dhanka kale wakiilka xidigan Barcelona ee Olmo ayaa la sheegay in uu ku sugan yahay dalka Ingiriiska oo uu kula xaajoonayo koox ka dhisan EPL waxaana sida uu qorayo wargeyska The Mail laacibkan doonaya kooxo ay kamid yihiin Man United, Man City iyo Arsenal oo kulligood wada doonaya inay ka faa'iideystaan duruufta taagan si ay u helaan adeega laacibkan reer Spain ee 26 jirka ah walow rabitaanka laacibka Olmo ay tahay inuu ku sii nagaado kooxda Barcelona misna waxa dhici karta in aanu dooq u furnayn hadii lacala la diido diiwaan gelintiisa yeelkeeda warar kale oo uu gadaal ka qoray isla Daily Mail ayaa sheegaya in Andy Barra oo ah wakiilka laacibkani uu Manchester u joogo fasax ee aanu u joogin howlo shaqo dhanka kale arbaha garab weerarka ah ee kooxda AC Milan ee Rafael Leao ayaa isna la sheegay inuu u wareegi karo horyaalka Premier League fasal ciyaareedka soo aadan xil aan laacibka aad iskugu wanaagsanayn macalinka kooxda Milan ee Paulo Fonseca warqadka Milan Live ayaana waxa uu qorayaa in Manchester United ay kamid tahay kooxaha xiiseynaya xidigan reer Portugal oo ay sidoo kale daba socdaan kooxo ay kamid yihiin Arsenal iyo kooxda ka ciyaarta horyaalka La Liga ee Barcelona isla AC Milan hadii aanu si anba qaadnana La Gazzetta dello Sport ayaa waxa uu qorayaa in Milan ay doonayso laacibka 20 jirka ah ee kooxda Valencia daafac uga ciyaara ee Christian Mosquera si ay ugu bedesho Fikayo Tomori oo u dhashay dalkaas Ingiriiska kaas ay wada ciirsanayaan ugu yaraan 3 kooxood oo ka ciyaara horyaalka Premier League oo ay kamid yihiin West Ham iyo Newcastle iyo sidoo kale 2 koox oo Talyaani ah oo kala ah Juventus iyo Napoli dhanka kale laacibka reer Brazil ee Rodrigo Silva de Goes ayaa sheegay in uu doonayo inuu ku sii sugnaado kooxda Real Madrid Tio Relafo ay sheegtay in laacibkan ay xiiseynayso kooxda Man City oo sidoo kale fasal ciyaareedkii la soo dhaafay aad u doonaysay City ayaa xitaa la sheegay in suuq xagaagi ay dalab rasmi ah u gudbisay kooxda Real Madrid taasoo laakiin miinka ka cuskatay in laacibkan Man City ku wareejiso Rodrigo ayaa camaaliqada reer Spain waxa uu qandaraas kula jiraa ilaa xagaaga 2028 dhanka kale laacibka dadabka bidix ee kooxda Bayern Munich ee Alphonso Davies oo 24 jir ah ayaa isna la sheegay in uu furan yahay ku biirista horyaalka Premier League xagaaga soo aadan tii ay kooxaha safka ugu jira ugu horeeyaan kooxaha reer waqooyiga ah ee Man United iyo Liverpool dhanka kale isla Man United ayaa la sheegay in magacawday sicirka ay ku bixinayso laacibka Marcus Rashford oo ah 50 milyan oo ganiga sterling ah iyadoo majallada Tutto Sport ay qorayso in ay xitaa 30 jirkan u bandhigtay maareeyaha suuqa kooxda Juventus ee Cristiano Giuntoli balse Giuntoli iyo macalinka kooxda Juventus ee Thiago Motta ayaa la sheegay inay doonayaan laacib kale oo ka tirsan United oo ah qanaaska Jose Zirkzee dhanka kale kabiirka Cristiano Ronaldo ayaa sheegay in uu ku noqon karo kooxda Man United balse ay taasi tahay isaga oo mulkiile ah Ronaldo oo imika 39 jir ah ayaana sheegay inuu baxnaanin kari lahaa meelaha ay ka bugto kooxdiisii hore ee Man United xilli uu ka hadlayay abaalmarinta Dubai Global Soccer Awards waxaana sidoo kale taageeray jaalihiisa reer Portugal ee Ruben Amorim oo ugu qeyl sameeyay in aan kaliya lagu eedi karin eelka ka taagan Old Trafford haddii aan noqon lahaa milkiilaha naadiga wax kasta waan cadeyn lahaa waxaana sixi lahaa waxyaabaha ka xun meeshaas ayuu yiri Ronaldo dhanka kale kooxda Real Madrid ayaa isha ku haysa daafaca kooxda Bournemouth ee Dean Huijsen oo xagaagii tagay kooxdan Dincourt uga soo biiray dhanka Juventus waxaanu laacibku ku bulaalay ka shaqaynta macallin Andoni Ariola taasoo soo jiidatay dareenka dadka laacibiinta u soo ilaaleeya ama u soo arka kooxda Real Madrid yeelkeeda Real ayaan wali hubin in haddii ay lacala Huijsen iibsadaan uu diyaar u yahay inuu markiiba ku biiro safka koowaad ee kooxdaasi waxaa sidoo kale xidigan soo baxaya ee 19 jirka ah sidoo kale xiiseynaya kooxo ay ugu horeeyaan Arsenal iyo Man United Arsenal ayaa sidoo kale isha ku haysa weeraryahanka kooxda Wolves ee reer Brazil ee Matheus Cunha oo 25 jir ah
kaasoo saxiixiisa si sahal ah lagu hanan karo haddii ay kooxdiisa ka ciyaarta Midlands ay u noqoto horyaalka Championship. Maxamed Xaaji, Hadal Same TV.